maanta waxaan ka sheekeeyay sheekeer sheekadaas waxay ka dhacday magaalada Hargeysa waqti hore oo meelaha del gidaarada la iskaga sheekeysan jiray inaan bu soo gaxaystay deetana meel waxay fadhiisteen gidaara markii gidaarka fadhiisteen ayaa waxa dhacday inantii soo jimanba ku jiro inantii waa dhacday deetana ninka way tala ku cadaadaatay deetana adigu goor dambe oo siiri gaarmo yeerata oo ninkii yaabay aynaanta soo kacday markii ay soo kacday ayuu hees qaaday asiina anoo dhinacaaga jira sheekanaan ku dhamay markaad dhacdayeedanta talaba igu dhahaaratee dheemaanay walaashay naftu waxay igu dhahdaa dholiyo gaadhi weynu yeedh haddana waxay igu dhahdaa dheemaanay walaashay intaan dhakhtar iyo baadhi siman kawar dhowr bay dhahdaa ninka wuxuu heesta muu qaadamaasuu yidhi yartii xaragada badnayd yartii xuracaynta la mooday kaashayduna ay u xiistay damiirkii markay xawlatay waxaan ka xishoodaba xaqiiqdii markan u dhiibay ayay xaragadii ilowday waxaan ka xishoodaba xaqiiqdii markan u dhiibay jacaylkii wada xoraynay ayay xaragadii ilowday markaan xoorkii dhaamii lahay ayay xaragadii ilowday dhammaanteed isma xalayso kijada xaar baa dhex yaalla barhmaankii lama xalaynin xashiishiyo baranbara xafaadiga xoreeyey war xaakimadow dhagaysta xaalad markay xaggaa marayso furniinkuu xalaal sumaaha ninbaa waxaa jirta u ducaystay dabeetna wuxuu yidhi wuxuu soo qaastay heestii axmed siki dabeetna wuxuu yidhi astaansan edeebsan toaan layfkaan ka buuqin astaansan edeebsan toaan layfkaan ka buuqin hadalkeeda ou isbiyeynin istaatigiskaan ka buuxin ducadii hooyadeed ka baydhin ayaan ka baryaa raxmaanka dadnimo debicsan dadnimasan fidkii suuqou boqoolin timaha madaxaan dhinac banaynin ayaan ka baryaa raxmaanka taasuna intaa inaga weeye marka magacayga waxaa weeye Khaalid Maxamed Maadi iyo wakaalada Samakaab